hay-adda wadaniga ee Xasan Awlibaax Foundation ayaa deeq raashin ah u qaybisay ilaa 700 oo qoys oo ku nool degmada Laasada Waca iyo waliba tuulooyinka ku hareeraysan iyadoo qoys walibana siinaysa 2 haaf oo raashin iyo waliba tanag timira caagad saliida. Gudoomiyaha hay-addaasi wadaniga Xasan Awlibaax ayaa ka warbixiyay deeqdaasi iyo waliba dadka ay soo gaarsiiyeen. raashinka maanta aan halkaa keenay 60,000 oo dollar bay ka gaftay soo tijaartay waxa ku dayataan de islaamka aan diidigay taa aan diidigay maanta sanad walba 8 sanadood ayna dhaafay baba sheegaya 8 sanadood ayna dhaafay buuxda ka keenay dhiigayga hadii muruqayga wax ku soo shaqaystay soo xadin dawlad kamaan xadin sida qaarkood dadka qaarkii maanta jooga wadanka jooga waxaan hadii wuxuu ka shaqaday xoogay ka soo gooyay waxay yeeshaan war sunnaha intiina kale Soomaaliyeey ka oo sunnaha oo bisha Ramadaan dadka masaakiinta ah ee baqtiyaya ee aan biyaha haysan sida kuwan maanta magaalada jooga ku arkay. Gudoomiyaha Xasan Awlibaax ayaa geesta kale madaxweyne Siilaanyo dhaliilo culus soo jeediyay. aan ahayn saaxib oo boqolkiiba 95 risaaqada ugu cuno Soomaaliya ka soo baxdo ayaa maanta biyo cabbo xaafadahooda iyo tuulayaashooda 20 kaama u jira kuwa ka fog iska daayo biyo qabow biyo macaan أنا كهقبران واحد ينسى سيراني وواحد يهي قرادك إيوه هديم حما كده هريره هذا أيوب مدحورية مسيحورية وانت كاب دمانتي مياه هدوه فوضي صاحب حي وقيتت تبرنا والذين يجرى وحب سارين وحبونية إنك السوء عدد حما كده وحاسود ما يجرى ينوغي هاي إنه كغرسانية hadduu caynkaa yahay oo aanu isaga iyo dadka hareerihiisa jooga shaqadii oo dirtay ee ummaddu u dirtay aanu ka soo baxayn daarahan fooqan uu ka meersaday waa inuu iska tagaa oo haddii uu ka tagaa waxa kale oo haddii uu ka taasoo gudboon siiraaya maanta halkan maanta wuxuu yaalla ma jiraan Soomaaliya wuxuu yaalla ma jiraan siiraaya wuu faygaroobay wuxuu noqday waxaan hadii muxuu keenay leeyahay sida baabuurka steerinkiisa kolba dhan oo duwayo kuwa u duwayaana waa waxa hareerihiisa jooga waxa ay dad ugu dhaweeyaan waxa aan leeyahay Soomaalidu hatta shaqo dadkanu ha samaysato dadkanu ha ka kacay fadhiga dadkanu ha isu yeedeen ha shireen hadii muxuu keenay qodobo yaani ku shireen dhammaantood ha shireen ونكا iska qabteen inta goor tahay waxay doonayaan inay isku dharaasho oo ay baabado oo dadka xarar loo jeedo waana qaano 7 sano baa siiraaya qaan hindisiisa dhaqaana dadka filosofiisa dhaqaana wuxuu doonaya ma aha hadii maxamed Soomaaliya hagaagto oo caalamka dhanka raacdo waa ka Soomaaliya gobol weeyaan Djibouti bay ka godoon tahay Ethiopia ka godoon tahay national community ka godoon tahay ki Ingiriiskii inoogu dhawaa bay ka godoon tahay inuu maanta hadii maxamed keeda yahay shay weeyaan Soomaaliya bay ceeb ku tahay Siiraanyo kale maanta hadii oo qosiyo calooshintu weynaatay oo hadii maxamed keeda yahay isagu raaxaysanayo Siiraanyo hata London fooqyadiisa loo meersaday yaa isaga reerkiis ha tago Siiraanyo degdeg uga taga meeshan election aan labada midba waynu ku tagaa waxa hadii maxamed taasaga gudoomaata Soomaaliland wax kale gudoomo ma jiraan waa inuu haddaad cadow leedahay cadow haddii aad leedahay cadowyaadaha kororsan cadowgii Soomaaliya inuu kordhinaya cadowguu sii horseedaya waa kanu dadoo dhan haddii muxuu ka maanta ka soo horjeedo sida horeba ugu sheegay wax hayaantii dhaweyto 30 milyan oo
bilaashabay united waxay dhahaan waanu kugu eegaynaa 30 halkee uu geeyey waxaan oo caga kii kale xaguu geeyey haddii maxamed ka horeysay waxa siraayo Soomaaliya hadda doonaysaan inay wax noqotaan inay wada wax ka raacdaan haddii maxamed ka leeyahay tirsanaataan oo eedeego oo aan la xaqarin oo aan caruurihiinu badda ku daadan maayo walba kuma yaayo ko ah aanay badda ku daadan iska qabta kan qabta waa mujrim siraayo iska qabta مبارك نيرك تلفزيون عالمي ستار تي في بربرة